nabaddu waa qayimka kan ugu sareeya ee aadanaha yeesho, mana jiro iska hor imaad ijtimaaci oo wanaagsan, mana jirto nabad xumaan wadata. inaan si fudud ku ogaana qiimaha iyo wanaagga nabaddu leedahay waa marka aan barbar dhigno iska hor imaad, dagaalada sokeeye iyo waxyaabaha laga dhaxlo. fikrad ahaan, nabaddu waa heshiis bulshadeed, waana waxa kaliya ay isku raacsan yihiin mujtamaca dunida oo dhan iyo nidaamyada kala duwan ee dowladaha caalamka ka jira. nabaddu waa marka ay dadka awood u yeeshaan inay xaliyaan khilaafaadkooda iyadoo aan loo maraynin gacan ka hadal iyo isdhibaateen. haddiise khilaafka xalkiisii laga raadiyo dagaal iyo isqabqabsi oo heerar kala duwan leh, waxay natiijada noqonaysaa burbur. jiritaanka nabaddu kama dhigayso in aanay jirin khilaafyo iyo iska hor imaadyo wata gacan ka hadal, ee nabaddu waa awood lagu xaliyo khilaafka bulshada ka dhex taagan. waxa kaliya ee nabadda dhaawac u geysan kara waa marka ay isdiidaan danaha kala duwan ee bulshada leedahay, sida kuwa siyaasadeed, dhaqaale iyo danaha bulshada loo waayey hoggaan awood u leh inuu fahmo kala duwanaanshaha danahaasi ee siin kara fursado ay isku xaliyaan khilaafaadkooda. natiijada nabad la'aantu leedahay waxa si cajiiba oo cilmiyeysan u qeexay allah u naxariistay abwaankii weynaa maxamed xaashi dhamac gaariye, isagoo ka tiriyey gabaygan qiimaha leh. ma og tahay in hawd laga guuray, ma og tahay gabdhaa wada heermay, ma og tahay rasaasta habowday, ma og tahay hoggaanka la eeday, ma og tahay hiraayda wiraayda hadhac iyo bardaan laga caagay, harad iyo biyaa godobaysan, naylaha haraaryadu laysay, shimbiraha dhirtii harsan waayey, hiihd iyo hayayda baxaysa. ma og tahay lacaybka la huurshay, ooryaha asayda hagoogtay, hooyada baroorta laf mooday, aanada ilmaha ku hadaaqay, dhalasho iyo hablaha dhaxdi seegay. ma og tahay habaarka dhisaalan, halasaha dagaalka sokeeye, dhalintiiyo halyeeyada leeday, gacalkiiyo hilbaa isxasuuqay. haddaba xalka keliya ee looga gudbi kara nabad la'aantu waa in la helaa cadaalad bulshadeed, taasoo ah in bulshada si siman u helaan fursad u suuragelinaysa inay ka qayb qaataan dhalinta nabadda, ayadoon qofna ra'yigiisa wuxuu aaminsan yahay iyo danihiisii laga hor imaan. arrintaana ma keeni karaan madax siyaasadeed, kooxo gaara, axsaab siyaasadeed iyo qabiil keliya, ee waa in la helaa hoggaan siyaasadeed oo loo midaysan yahay, lehna awood fulin oo loo wakiishay. nolosha bini'aadamka oo badanaa macaankeeda lagu tilmaamo hantida, owlaadda, caafimaadka, waxay nimcadaasoo dhan baaba'daa marka nabadda la waayo.